ojuxow hambalyiyo ammaan baa lagu hayaa adigan hawadii Puntland heegan kugu nahay adigan hawadii Puntland heegan kugu nahay adigan hawadii Puntland heegan kugu nahay wasiir hore xilugu guulaystay oo habboon wasiir hore xilugu guulaystay oo habboon waxbarashada heerar gaarsiiyay horumar wacan waxbarashada heerar gaarsiiyay hadaf macaan waxbarashada heerar gaarsiiyay hadaf macaan halyeeyow doona Soomaali horumarkeed halyeeyow doona Soomaali horumarkeed bahagajow tahay oo hadiganu lagu hayaa oo dhammaan taageerahoodana hortaada taal kulan lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa cusub ayaa maanta lagu qabtay xarunta gobolka Nugaal ee magaalada Garowe waxaana ka soo qayb galay wasiiro xildhibaano isimo samadoonno nabadoonno saraakiil haween iyo dhalinyaro ka soo qaybgalayaashii munaasabada ayaa ka dalbaday labada aqal ee golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyaan xukuumadda mudane ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana ay alla uga baryeen in hawsha loo igmaday uu ku guuleeyo waxaynu taageeraynaa dawladda uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo runtii inagu aynu u aragno inay tahay dawladdii mudnayd dadkii ku habboonaa shaqadaas inoo maaragtay qaban lahaa maanta saddex qodob oo muhiim ah oo la rabo labana cidda ka shaqayn lahayd inaynu u maaragtay taageerno soo dhaweyno sidii ay baarlamaankeennu u ansixin lahaayeen federaalku labana ina dul taagan tahay oo haddii aan maaragtay iyaga la ansixin ayna inoo shaqaynayn labadu waxa weeye waa amniga oo runtii amni la'aan haddii waxba aysan suuroobayn waxayna ku xiran tahay in amnigu fariisto ansixinta golaha xukuumadda sababtaa waxa weeye amnigu waa muhiim amniga dawladda Soomaaliya meeshuu marayo de maanta waynu isla garanaynaa oo waxba isaga sheegi meeno waanu isla wada ognahay saa darteed waxa muhiim ah inaynu helno xukuumadda inoo shaqo tagi lahayd oo amniga fariisin lahayd qodobka labaad waa abaaraha oo aynu ognahay iyaguna meeshay marayaan oo la leeyahay gobollo badan oo dhulka kamid ah ama dhul Soomaaliya oo dhan abaar sintay ah iyo waliba gobollada kale oo dariska dawladaha dariska in Allah haddii aan dawladda hore loo ansixina ciddii u khidmayn lahayd ama u adeegi lahayd aysan meeshaas maaragtay ay hawshoodii habsan tahay haddii aynu Soomaali weynay aan beeldarayno ama aynu ka dhigno sidii hore oo kuwii kale aynu ka dhigno waxaanu malaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaysan waxba u oolayn damba waxay inoo ku jirtaa inaan dawladda ayidno garab istaagno naf iyo maal waxgarad dhalinyaro intaba inaynu garab istaagno damba inoo ku jirta waxaan u mahadnaqayaa isimadayada iyo dawladayada Puntland oo suurto gelisay inaan garab istaagno dawladda federaalka oo farmaajo madaxda u yahay waxaan kale ka hadlayaa inaan u hambaliyeeyo wasiirada Soomaaliyeed uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed ra'iisul wasaare waa mahadsan tahay aniga rag badan baan ka garanayaa Soomaaliyeed waa rag lagu aamini karo wax amaanana loo dhiibi karo raggaan arkay oo ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay aynu ka faa'iideysano waxay matalaysaa arrintan sida Puntland ay u soo dhaweysay inta Soomaali ay ka leegtayna waa garanaysan dhulkan baaxadiisa iyo dadka deegaankan joogay inta ay Soomaali ka leegihiin taamicnaheedu waxa weeye waxaad haysataan taageero baaxad leh oo aad isku haleyn kartaan horta taa kalsooni ku qaba tan kale waxa weeye Soomaaliya maanta xilligan hadda la taagan yahay waxay u baahan tahay marka koowaad aabe والله مدحوينا وما باه مدحوينا horta taa ogo wasiirada waxaan leeyahay
waxaad xusuunataa Soomaali maanta inay u baahan tahay wiilal iyo gabdho u khidmeeyo oo wiilashoodii iyo gabdhahoodii ah uma baahna wasiiro derbiya ku xiran iyo wiilal bodyguards dhabarkooda taana ogaada kalsooni baan idin siinaynaa waa idin taageeraynaa hubaal wey hana ridina oo hana tuurina hawsha idinkaa dhabarka la idiin saaray alla subxaanahu wa tacaala ha caasiyina waxa la idin dhiibay wax weyn ma ah idinna ha ku fidmanoobina annagana hana shidaynina intaa waxaan kaga gudbayaa isimada waxaan leeyahay ummadda u duceeya nabadoonnada madaxdana waxaan leeyahay farmaajo ugu horeeya waa ulul amr waxaan garanayaa madaxweynihii u dambeeyay maxamed siyaad bar intaan dalku burburin xilliyeeda ka mid inuu yiri iimaanka Allah idinka qaado waxaan isleeyahay ama sida iimaanku nooga maqan yahay or no ducee baan leenahay madaxweyne ducee oo waxa tirada iimaanka ummadda Allah ku sugo rabbi waxaan rabbi u ka baryaya waa caasinay nafteedaan dulminay adna waa ku dulminay kuleelkan iyo roob la'aantan iyo raxmad yaridan waxa weeye waxaanu adiga annagu keensanay weeye waxaad adigu noo dhintay maahe rabbi oo naga dulqaadi kartaa xukuuma ah innaga waxaa waajibina ku ah toobadkeen wallaahi khaladaad badan baynu gallay wallaahi khaladaad badan baynu gallay waa inaynu toobadkeennaa xaggan markaan xoogaa wax sii kala yara guriguriyeeyo contributionka Puntland annagu waxaanu hubnaa inaanu dawladda garab istaagayno horeyna waxaa nooga baxay aqli badan maal maskax iyo madax qaar ay ku maqan yihiin oo Soomaali daraadeed ay aakhira u aadeen wali waxaanu diyaar u nahay inaanu sacrifice ka noocaas oo kale inaanu sameeyno Soomaali kalsooniha ku qabto inaanu marti gelinay dalka oo dhiigiisu uu daadanayo annaguna aanu ka mid ahayn waliba dhibanayaashii ugu horeeyay oo dhibka loo geystay inaanu haddana walaalihii dhibka noo geystay wali aanu dalka ku marti gelinay oo aanu soo dhaweynay taana aanu ilownin diyaar maanta wali waxaanu u nahay iyadoo hanti maqan tahay oo nafi maqan tahay inaanu wali Soomaali intaanu cafino haddana aanu soo dhaweynay inta kale Soomaali waxaanu ka filaynaa shir salaaman waxaan akhrinayaa nuxurka shirkan uu ku saabsan yahay oo hordhacis inaad hesheen dibna laga haddii ilaahay yidhaahdo gunaanadi doono dowladda Puntland ee Soomaaliya shirweynaha waxgaradka gobolka Nugaal taageerada xukuumadda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya sida aynu wada ognahay Soomaaliya waxay maanta ku jirtaa marxalad aad u adag waxayna wajahaysaa dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira xag nabadgelyo kuwa dhaqaale iyo kala daadsanaan baahsan abaaro dad iyo dunyaba saameeyay jiritaanka horumarka iyo nolosha ummaddu waxay ku xiran yihiin helitaanka hoggaan u adeega danaha guud ee ummadda Soomaaliyeed si dadka loogu gaaritaanka himilada iyo yoolka ay tigsanayeen si haddaba ummadda Soomaaliyeed ay uga gudubto duruufaha adag ee daashaday muddada 30 sano ku dhow waxa laga maarmaan ah in la helo midnimo ummadda Soomaaliyeed iyo wada shaqayn u dhaxaysa hoggaanka iyo shacabka muddadii yareed ee dawladda tan baarlamaanka doortay waxa la qaaday wadalbada bilood ahayd tallaabooyin waaweyn waxa ka mid ahaa qodobo dastuuri ahayd inay dhacaan waxa la doortay bishii February 8 madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu culayskii ummadda Soomaaliyeed saartay isna wuxuu ku wareejiyay Dr. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo yana ahayd milestone weyn oo la gaadhay Ra'iisul Wasaaruhu baaraandeg dabadeed isaguna wuxuu soo xulay xukuumad ku sifaysan tayo tiro hufnaan iyo daacadnimo tallaabooyinkaas haddii ay ka soo gudbeen waxaynu kala ognahay xukuumadda la dhisay baarlamaankii ummadda Soomaaliyeed matalayay ee aynu halka kan ku dooranay 50 qof oo ka tirsan bulshada Saudi xambaar kana ahaa cidii ay dooratay inay mar labaad separation of power waxa la yiraahdo ama kala socnaanta hay'adaha dawladda waxa laga maarmi waayay duruufaha lagu jira darteed in qayb libaax ay ka qaataan waad ogtihiin tirada ay ka heleen boqolkiiba waxay ku dhowdahay dhowr iyo 60 haddaba iyadoo aragtidaas laga ambaqaadayo ayaa odayaasha waxgaradka iyo shacabka ku nool caasimadda
dowlad goboleedka ama dowladda Puntland ee Garowe iyo guud ahaan gobolka Nugaaleed waxay abaabuleen shirka kan aad arkaysaan ee ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshadu shirkaasi waxa weeyaan iyagoo ah dadkii guurtida ahaa oo ka kala yimid ku sugnaa caasimadda matalayana dadka kala duwan ee bulshada caasimaddu waa wadnaha dowladda Puntland iyagoo qaybahoodii kala duwan fadhiyaan waxay wakiil ka yihiin dhammaan xuduudaha dowladda Puntland waxayna dowladda siinayaan ra'iisul wasaare Dr. Xasan Cali Khayre taageero buuxda si inta loo gaaro waxaa shirweynuhu soo jeedinayaa in baarlamaanka Soomaaliya ee sharafta leh qayb weynna maaragtay ka qaatay isbedelkii waddanka ka dhacay inay kalsooni sida ay u siiyeen ra'iisul wasaaraha si lamada ay u siiyaan shirweynuhu wuxuu ka digayaa in ansixinta xukuumadda cusub la geliyo khilaaf iyo qalalaase siyaasadeed oo ku dhisan dana shakhsi taasoo waxgarad ku arko inay dibadhac ku keeni karto yidiladii laga qabay dowladda Soomaaliyeed sidoo kale shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku duuban inay garab joogsadaan xukuumadda cusub isla markaana sidoo kale shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed iyagoo isku duuban inay garab joogsadaan xukuumadda cusub isla markaana wax looga qabto dhibaatooyinka baaxadda leh ay ugu horeyso arrimaha abaaruhu wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh inta la iscafiyo in dawladda la garab istaago waxna la qabto waxba noo hagaagaya ilaahayna aynu ku xirano gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne iyo Cabdi Samatar Surcad oo kamid ah golaha wakiilada Puntland ayaa muujiyay dareen farxadeed iyagoo ka dalbaday golaha wasiirada cusub in ay dib u milicsadaan waayihii qaraara ee dalku soo maray loona baahan yahay hiigsi iyo horumar ummadani ku tallaabsato xukuumadda la soo dhisay waxaana ballan qaadaynaa inaan la shaqayn doono si dhow anigoo dowladda Puntland wakiil uga ah waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeedna inaan fariin u diro ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in la shaqeeyo xukuumadda cusub oo aan isleeyahay runtii waa xukuumaddii tayo oo horay oo ra'iisul wasaaruhu xilligii oo madaxweynaha ahaa oo magaca ku dhawaaqay oo dib u soo noolaatay waxaan rabaa markii wasiirada lagu dhawaaqay waxaa soo baxay ereyo ah reer hebel baa hal dheeriya qaatay Soomaaliya waan ognahay muddo rubuc qarni iyo waliba dheeri waxay ku jirtay hebel baa dheeri qaatay waxay marka maanta waxaan u mareynayaa inay dhamaatay oo ay la joogo xilligii laga gudbi lahaa hebel baa wax dheeri wata waxa la taagan yahay oo xilligeedii la joogaa xilligii la oran lahaa war hebel muxuu yahay ma yahay qof Soomaalnimo ka shaqeynaya ma yahay qof danta ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaya ma yahay qof ka saari kara waqtigan adag ee Soomaaliya ku jirto halkaas inaan ka duulo runtii waxaan u aragnaa inay xukuumaddaanu ay sidaa tahay inta marka haday tahay waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan in la shaqeeyo baarlamaanka dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa labadooda gole iyagoo aan ognahay say ku yimaadeen oo ka duwan baarlamaanadii hore oo ku yimi kalsooni shacab kadibna ay dhashay xukuumad kalsooniyeed ama madaxweyne kalsooniyeed inay kalsoonidooda ay siiyaan oo ay anaga wakiilka nooga yihiin intaasaan iyagana ka codsanaya qodobka labaad oo abaaraha dalkeena waxaa ka jira abaara adag baa ka jira ilaahayna waxaan ka baryayaa si degdeg ah ilaahay inuu abaarta nooga saaro oo raxmad khayr qaba ilaahay inuu siiyo waxaan u baaqayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland gaar ahaan dadka hadda gobolka Nugaal degan oo caasimadda iyo degmooyinka kale ku sugan in loo gurmado walaalaha Soomaaliyeed oo dadkooda oo waliba meelo badan isaga soo guuray oo aan waxba haysan xoolihiina ka dhamaadeen qofkii waxali kara iyo qofkii cod ku taageeri kara
intuba in la taageero oo la garab istaago intaas ayagana ka codsanaya. ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynayaa ammaanka. waxaan codsanayaa shacabweynaha reer Garowe ama gobolka Nugaal in laga shaqeeyo ammaanka oo laga wada shaqeeyo hay'adaha amniga la shaqeeyo inagoo isku duuban. maxaa yeelay amnigu qof kaliya dan uma ahan, ummadda dhan buu dan u yahay. halkuna waa caasimadii Puntland weeye oo xuduntii Puntland oo dadka reer Puntland ay ku wada dhan yihiin. waxaan u baaqayaa shacabka ku nool magaaladan caasimadda ah oo magaceedu la magac baxday amni badantii Garowe ahayd oo shacabku in ammaanka hore loo sii wado, hay'adaha dawladana laga shaqeeyo. annaguna waxaanu soo diyaarinay barnaamij cusub oo lagu dardargelinayo ammaanka caasimadda oo aan la sugaynay imaatinka madaxweynaha, wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo odayaashana aan iskala sheer garaynay ama aan ka wada tashanay. barnaamijkaasna waa keeni doonaa haddii alla idmo. waxaan rabnaa isagana in lala shaqeeyo oo nala kala shaqeeyo. intaasaan kusoo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum. maalin bay ahayd Soomaaliya ay u dhaqaaqday inay hore u socoto. waxaa laga gudbay waqtigii ku meel gaarka ahaa. waxaa timid dawlad si kasta ha loo dhaliilo laakiin meel bay wax gaarsiisay. shaqo fiican bay qabatay. waad ogtihiin oo baarlamaanka hadda jira ilaa dawladdii ay burburtay kacaanka waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay baarlamaankii ugu tayada fiicnaa. waxaana keenay saamayntii ay bulshada ku lahayd. bulshadii soo dooranaysay, bulshadii kala xulanaysay, isimadii hogaaminayay, taasaa keentay. Soomaaliya waad ogtihiinoo maanta meel adag bay maraysay. waddanka Soomaaliya wuxuu shahaadada ka qaatay, shahaadada ugu sarreysa ee musuqmaasuqaad. dawlad state failure waxa la yiraahdaa ama dawlad burburtay wuxuu gaaray wuxuu qaatay shahaadadii ugu sarreysay oo la siiyo dawlad burburtay. waxaa la qaatay hawadeennii, waxaa la qaatay baddeenni iyo khayraadkii ku jiray. waxaa halkaa ina gaadhsiiyey waa waxaynu inagu shaqaysanay. waa kala qoqobka Soomaaliyeed, waa danaysiga siyaasiga danta khaaska leh, waa qabiilka iyo wixii la mid ah. waad ogtihiin Soomaaliya boqolkiiba 40 ka mid ah waa qaxday. xagee ku ogeyn? waddamaday ku nool yihiin maxay kala kulmeen? Soomaali ma sii ahaan doonaan? carruurtay dhaleen ma soo celin doonaan? waad ogtihiin hadda magaalada Garowe aan joogno inay joogaan dad badan oo qaraaba haddana aan isku luuqad ahayn. Danish bay ku hadlayaan, Swedish bay ku hadlayaan, Ingiriis bay ku hadlayaan, luuqad Faransiis bay ku hadlayaan, Talyaani bay ku hadlayaan. waa carruur qaraaba oo ehelkii kala qaxay oo intaasoo waddaninta kala tegay hadda aan isluuqad aqoon. maxaad u malaynaysaan Soomaaliya oo xataa la helay qof Soomaali ah oo qaatay dhalashada Chinese? jeclaa inaad ku aragteen TV-yada qofkii u horreeyay Soomaaliya oo qaata baasaboorka Chinese. xagee adduunkii kale marka ka nahay? Soomaaliya saasay u socotaa. Soomaaliya haddana marka dhinaca kale laga eego waddan ka mid ah waddamada ugu khayraadka badan adduunkay ku jirtaa. waxay leedahay badda ugu dheer ee Afrika. waxay leedahay dad badan oo naxariis leh. haddana meelo badan baan ka sheegay. waddan ka mid ah waddamada Scandinavian-ka baa waxaa lagu sameeyey daraasad. dad badan oo dee waddamada badan ka soo qaxay baa taga. marka dadku markay waayeel noqdaan dawladda ayaa keergarayso meel ku xaraysa. guryaha loo dhisaa, waa la ilaaliyaa caafimaadkooda, waa laga shaqeeya, dad baa ka shaqeeya. dadkii u shaqaynayay baa waxaa lagu sameeyey daraasad. waxaa la yidhi ha la soo baaro ilaa dadkan waa dad waayeel ah. wax kastoo markii hore ay ahaayeen, hadday madax ahaayeen iyo hadday wax kale ahaayeenba hadda waa waayeel, magacaasay wataan. waxaa la yidhi ha la baaro
dadka jinsiyadda ugu naxariista badan hana la sii baaro ma raggaa naxariis badan mise dumarka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed baa waxay noqdeen jinsiyadda ugu naxariista badan dadka waayeelka markaas haddana dumarka Soomaaliyeed waxa la siiyay dadka ugu sii naxariis badan ee ilaalinta iyo xanaanada waayeelka waxaan intaa u cabirayaa Soomaaliya meeshay marayso maanta uma baahna buur uma baahna dan ama maslaxad qof gooniya uu leeyahay in waxa weeye loogu mashquuliyo waad ogtihiin baarlamaan baa dhisnay baarlamaanka waa soo baxay markii ugu horeysay baa Soomaaliya waxaa loo dhisay upper house ama aqalka sare oo loogu talagalay inuu kaabo baarlamaanka oo loogu talagalay wax badan inuu qabto waa ma taariikhda markii ugu horeysay waan dirnay xamar bay tageen doorashay galeen waxa isa sharaxay 50 wax ka badan ugu dambeynna waxaa doorashada galay 20 wax ka badan waxaa soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adduunku waa dhaqaaqay dadka Soomaaliyeedna markii hore marka baarlamaanku xamar u sii socdeen waa maagayeen laalush qaatayaal mooshin keenayaal waxaasi akhrinayeen laakiin markay doorteen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo duco ayay ugu abaalgudeen iyo inay ammaanaan Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse oo ah isimka guud ee Puntland ayaa u duceeyay xukuumadda cusub iyo ummadda Soomaaliyeed oo Islaan Ciise Islaan Maxamed uu mudan yahay oo xafladan isugu timi murwooyin iyo mudanayaalba salaanta la isugu duceeyo baan ku salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib ilaahay dambigan iyo kii waalidkan ba dhaaf ila dhamaanteed Allah inaga xijaab khayr dhamaantiisna Allah inoo furo taladeennana abshir Allah ka dhigo ilaahu nabad iyo roob baanu ka barin ilaahu nabad iyo roob baanu ka barin ilaahu nabad iyo roob baanu ka barin ilaahu cafi iyo caafimaad baanu ka barin ilaahu amal saalix iyo cibaado geeri gaadhi canaana barakale baan ku weydiisan khaatumada ilaahu khayr ku qatir ilaahu iimaanka nagu dilo nagu noolee Soomaali laabaheeda ilaahu burcad sumari rabbi uu soo jeedi ilaahu midee ilaahu xaqa ku toos nolosha adduunka iyo tan aakhiraba ilaahu xaqa ku toos Allahumma salli ala Muhammad intaas waa ducadii Faatiha إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنت كذب حفلتان إلهي ما مهله وأمهد علينا إن ضدكي سواء قاسمي أو سواء معمولي ومدحوية هاي برصاب كالوالد حفلتاني وبوينتلان مقال مدح ديو اللي ودا تشوهوية intii aanu ismaqalay gobolladana waa ayideen saddexda arrimood oo halka lagu soo qaaday waa laga hadlay hadalkii quruxda badnaa oo khiyaartii laga horreysay ku hadleen baanu ayidnay waxaanu ayidnay dowladda federaalka waxaa la yidhi xaaje horteeda la aqbalay gadaasheeda lama diido madaxweynihii baanu aqbalay ra'iisul wasaare baanu aqbalay golaha xukuumaddana waa aqbalay waana soo dhawaynaynaa waxaanu ku soo dhawaynaynaa gacmo furan iyo ehelnimo soomaalinimo walaalnimo aanu ku soo dhawaynaynaa waxaa jira wuxuu hadday dhashaan dowlad baa dhalatay baa la yidhaahdaa waa la dhaqaaleeyaa lama dhibaateeyo waa la fadhi baraa waa la istaajiyaa waa la socodsiiyaa kadib baa shafeeco laga filaa marka dadku korayo dowladda hadday dhalatay waxay u baahan tahay in la ogaado ma tii inoo fiicnayd baa mase waa tii shiddada lahayd iyadoo aan meel gaarin in lagu kaco ma wanaagsana in laga hor yimaadaa waa ceeb waxaan leeyahay labada gole golaha sare iyo aqalka baarlamaanka labada aqal Soomaali
anigu dadka waaweyn baan ku jiraa oo da'da ah waa iga muuqataa Soomaalidu meel bay u dhaqaaqdaa mana kala harto tareen baa dhaqaaqay ninkii ka dhaca waa nasiibkiis yaa la ceeboobin Soomaali maanta waa midaysan tahay waxa weeye waxa fuuli doonta seeyo bartukalaare ninkii maanta tareenka ka dhaca hal ogaado dhalinyaraad u badan tihiin mustaqbal baad rabtaan mutacallimiin baad leedihiin siyaasad baad ka rajo qabtaan waxani waa 4 sano ha ku waayin mustaqbalkaaga waa talo inta kadib Soomaaliyay bini aadanka hore maray oo dawladaha hadda la yiraahdo waxba ay caawimaan waxaynu maqashoonahay inay soo mareen burbur harbi ehli gaajo dhibaato khibrad bay ka qaateen waa shaqaysteen waa walaaloobeen waa midoobeen inagu 26 sano rafaadkii aynu ku jirnay baynu waxaynu ka qaadan lahay khibrad ka qaadan laanahay dadkeennii shabaabkeennii gabdhihii wiilashii saxaraa iyo bad iyo meel walba bahal ku cunay baynu khibrad ka qaadan laanahay hal la iska daayo aniga hal lagu bedelo inaga hal la iska daayo aniga hal lagu bedelo inaga haddaan sidaa la yeelin rafaadka laga bixi maayo waa lagu jirayaa waxaanse ilaahna ka rajaynaya qiyaastayduna tahay sidii madaxweynaha loo doortay haddaan ogaa oo ra-iisul wasaaraha ogaa oo hadda maamulkan la idmaayo xukuumadda uu dhisay aan ogahay xogteeda Soomaali waxaan u malaynayaa farajkeedii maanta ilaahay waa furay waana midowday lixdankii waxaa dhacday markii Soomaali dawladnimada loo helay gabadha 10 jirka ariga joogta haddii la yiraahdo ariga la joogta yaa tahay Soomaali kulub bay oran jireen waxaan isleeyahay anigu maanta Soomaali kulub baa soo noqotay yaan la faylgaroobin intaas waxaan ku soo gaabinayaa taageeradii dawladda cusub iyo talo iyo dardaaran iyo digniin abaaraha ilaahay baynu fariin u dirsanaynaa cid kale waxaana tari kartaa ma jirto ilaahu rabbiyo adigaanu fariin ku dirsanaynaa ilaahu waxaana saaran naga dulqaad waa la dambaabay dabadeedna ganaax baa ina ku dhacay bini aadankuna hadduu ilaahay usoo noqdo ganaaxa waa laga qaadaa ilaahu waa kuu soo noqonaya ganaaxa laga qaada aan iscafino kulligeen cafi aliya masaabax ilaahu rabbiyo waa kuu toobad keennay ilaahu ganaaxa naga qaado raxmad waasacan na sii intaasi waa dhibka abaaraha amnigu hadda ka hadalba ma leh awalna waa lagu jiray haddana waa lagu jiraa laakiin waxaa la doonayaa reerka wadaca alla waxaa loogu daraa la yidhiyo inaan la odhan askar baa ku maqane shacabku meel walba waa joogaa askarta iyo dawladdu meel keliyay maraan iyagaa laga rabaa amnigu ilaa inaga danteennii weeye qof kasta dawladdiina waa shacabka dadku sidaa ha ogaado ilaa madaxweyne waa shaqaale wuxuu xukuumadda u shaqeeya baarlamaanku waa shaqaale waa kuwaan dirsanay waxa weeye dawladda runta ahi waa shacabka aynu dawladnimadeenna ilaashanno oo nolosheenna ilaashanno oo ilaahna ugu dhowaano ummaddeenna ugu adeegno sidaas oo daacada qofkii wax arka ama dareema isagu hadduusan qaban karin oo xukuumadda iyo askarta ha ugu yeerto amniga ha laga shaqeeyo amni la-aan lama cibaadaysto wax lama cuno lamana seexdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahu nabad iyo naxariis baanu ku weydiisan ilaahu nabad iyo naxariis baanu ku weydiisan ilaahu nabad iyo naxariis baanu ku weydiisan ilaahu qabow iyo qanaacaanu ku weydiisan ilaahu cafi iyo caafimaad baanu ku weydiisan ilaahu raxmad waasacaanu ku weydiisan rabbiyow ilaahu raxmad waasacaanu ku weydiisan ilaahu adigaan ilahaagu rabbiyow dhinmin ilaahu bila aadan baanu nahay ilaahu wadaanu ku hoos joognaa ilaah kale ma jiro laa ilaaha ila allah ilaahu noo dir ilaahu raxmadda ibaheeda noo fur ilaahu nabadgelyadaada iyo naxariistaada noo fur ilaahu dad iyo dunya wuxuu buka shaafi iyo caafi ilaahu wixii caafimaad qaba u ziyaad ilaahu dariiqada laadada ilaahu adduun iyo aakhiraba naga du ilaahu dariiqa laaladaa naga du ilaahu adigaa gargaar leh wax kaloo gargaar leh ma jiraan ilaahu noo gargaar
ilaahu raxmadaada iyo nabadaada iyo naqdaada noogu gargaar rabbiyow adigaanu ku codsanna ilaahu wadaanu ku codsanna ilaahu noo deeq rabbiyow allahuma salli calaa maxamed faatixa intaa kadib aad baan xafladaan u soo dhaweynayaa intii soo agaasintay iyo intii soo ayidayba waxay ila tahay dad islaam aynu nahay wacyiga aynu ku jiro iyo waxa aynu soo marrayno waynu ognahay wixii haatan aakhir ah oo dame wixii ogi waa ilaahay wax bini aadan oo ogi ma jiraanin waxaa imaan doona waxaanse ilaah ka baryaynaa inuu khaatumadeenna uu khayr ku khatimo wixii inoo dameeya haddii nabad la yidhaahdana 91 waynu ogeyn haddii raxmad la yidhaahdana waxayna hayo waaynu aragnaa kolley waxay u muuqataa ruux bini aadana inaan ilaahay abuurtay xaqirin in hadduusan isagu isxaqirin waxaan isleeyahay marka waxyaalahaas ina haysta haddaynu muslim nahay waxaynu inagu adeeganay weeye wax ilaah uu ina ku xaqdiyayo inayan ahayn marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ina waafajiyo kelmadda xaqa ah iyadoo ay sidaa tahay haddana soomaalidu waxay tidhaahdaa wadeeca alla sidii suldaanku u sheegay reerka waxa loogu daro 91 Soomaaliya waxay haystay dhib bay ahayd wax iyadu isu keentay bay ahayd waxayna ka dul saari karaana waa rabbi kulley hadda na waxaynu ku jirnaa waqti adag waxaan aad u taageerayaa dawladihii hore iyo midda hadda jirta inta ka dhaxaysa sababtoo ay ku tahay haddii aan tii hore wax keenin maanta doorasho lama galeen dawlad bay wax u dhiibtay aad bay u mahadsan yihiin dawladihii hore oo maamuladii hore oo meel wax laga doorto wax keenay midda tanna aad baan ugu mahad celinayaa waana soo dhaweynayaa waxaan u soo dhaweynayaa qof kasta oo garashadiisu leh wuxuu dareensan yahay Soomaalidu meeshay ka tiraahdo jiirki lahayo jiriid kama qoslo wax kasta oo wanaaga oo soo baxa qofkii Soomaaliya ama islaama isaga maslaxadiisa ku jirta wax kasta oo wanaaga oo Soomaali u soo baxo waa taageersanahay ama ha awalmo ama ha aakhirmo ama hadda ha jooge oo tay ku tahay waxaynu nahay dadka kaliya isku diinta isku deegaanka isku codka wax kasta oo bili aadan uu ku kala soocan yahay wadaagaynuna sida laaligeed ilaa raasi sayr ilaa raasi kamboon qofka jooga oo Soomaaliga dhibta haysata qofkii garasho leh waa la haysataa kii wanaag la kulma meeshu doonaba ha joogo magac kastana ha sheegay kan kale waa la wadaagaya sababtoo ay ku tahay matal haddii qof maanta wax ka sugayay uu helo wuxuu ku noolaado ama nabadgelyo ha ahaato ama cunno iyo nolol kale ha ahaatee waa xil ka dhacay moogta marka aad baan u taageersanahay meel kasta oo Soomaaliya wanaag ka jiro raxmadi ka jirto wanaag ka jiro midaan haddaan soo gudbo waxay la tahay Puntland dhaqankeedaaba wuxuu yahay reer Puntland mar walbaba wixii Soomaaliya horumarkiisa inay taageerto waxaynu maanta bilownay maahan waxaynu horay u lahayn weey dibna aynu u lahaan doono wada jirka Soomaaliya iyo waxqabadka inaynu taageero maahan tan kaliya maaha marka hadee dawladdu waxaan u malaynayaa waxaynu ku horeysay dawladda hadda jirta xildhibaanada doorashadoodii waxaana ugu dambeeyay hadda dawladda dhisideedii intaas waa soo taageeray barlamaankii waa soo taageeray madaxweynaha waa soo taageeray ra'iisul wasaarihi waa soo taageeray wasaaradaha maanta joogana waa ku taageersanaa soo bixida ay soo baxeen iyo dhisida sida laaligeed waxa loo baahan yahay marka qof kasta oo aqli leh magacu doonaba ha sheegto meeshu doonaba ha joogo wixii Soomaaliya culays u keeni kara oo dib u keeni kara ala shakhsi ba haata qof hal qof ba ha ahaatee in laga waantoogo oo tay ku tahay waa soo aragnay dib waa soo aragnay
intaan hadda maanta madasha fartida ilaa 91dii dad wada waaweyn bay u badnaayeen inta kadib dhalatay ama markaa yaray in yar weeye waa soo aragnay teer iyo 91dii marka ama shakhsi ha ahaado ama guud ha ahaadee waxaan leeyahay wax Soomaaliya ragaadinaya waa in laga waantoobaa qofku magacu doono ha sheegto ama isin ha ahaado ama barlamaan ha ahaado ama bulshada kale ha ahaadee wixii Soomaaliya ragaad u noqonaya oo dhibaato iyo dib u celis ku keenaya baan leeyahay in laga waantoobo aad baad u mahadsantihiin aad baanu shirkaan u taageeraynaa Soomaaliyana waxaan leeyahay waxay ila tahay geed tagi jiray gartiisa waa yaqaanaa baa laga dhiman jirayna dhaxalkiisa waa yaqaanaayo waxa aynu soo maray waynu ognahay haday ama dib isu celinana hadee waa ku jiraynaa hadaynu ka baxnana sidii ama aynu ahaan jirnay ama adduunka laga yahay baynu noqonaynaa oo u gudbaynaa marka waxaan leeyahay qof kasto waxaad ku xisaabtantaa inaad adigu maanta haysid wanaaga jiritaanka nolosha sharafta Soomaaliya inaad haysid qof kasta oo Soomaaliya oo ku xisaabtan inaad haysid oo adiga naftaada codkaaga cagtaada aad haysid markii inta la helo qof walba sidaas uu u qaato inuu nolosha Soomaaliya iyo sharafta Soomaaliya iyo jiritaanka Soomaaliya uu hayo dee subaxda dama waxa isu soo baxaya intii oo wada Soomaalinimadii iyo sharaftii iyo qiimihii wada sida waa la wada qaadanaya laakiin haddii qofku yiraahdo maanta aan iraahdo inta kale oo masuula ama isimadaaba hadde muxuu ahay hawshaas leh ka sug hadde sidaan anigu isiru ka sug baa suura in mid badan oo kalena uu isiraahdo ka sug marka waxaanu samaynaynaa waxaanu wada qaadanaynaa qof walba inuu gurigiisa iyo rugtiisa ka bilaabo Soomaalinimadu inay ku jirto aad baad u mahadsantihiin cali xaajaba Allah inoo suufiyo kulankeenana kulan khayr kala tageennana mid khayr shirkina saas inoo